بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad. Si gaar ah waxaan rabaa inaan u salaamo reer Koonfur Galbeed caalamka meel walba ay ku sugan yihiin. Si gaar waxaan rabaa inaan u salaamo ahlu Baraawe oo meel walba adduunka ay joogaan. Salaan kadib waxaan rabaa inaan kelmado dhowr ah haddii Ilaahay waafajiyo inaan ka iraahdo arrimaha maalmahan socdo oo bulshadana in badan rag badanna ka hadleen meelo badanna looga hadlay arrintaas oo ku saabsan dhismaha dekedda degmada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed taasoo maalmahanba la hadal hayay. runtii dhagax dhigiddaasna waxaa goobjoog ka ahaa mas-uulka ugu sarreeya Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Laftagareen, sidoo kale mas-uulka ugu sarreeya oo ka soo jeeda reer Koonfur Galbeed oo ku matala gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe. runtii madax aad u sarreysa oo wufuudaasna ay la socdeen xildhibaanada ku matala deegaanka degmada Baraawe iyo sidoo kale arrimahaas oo dhagax dhigidda dekedana waxaa goobjoog ka ahaa maamulka deegaanka degmada Baraawe oo ugu horeeyo duqa magaalada ahna gudoomiyaha degmada, sidoo kale saraakiisha xeerarkoodii kala duwan ciidamada qalabka sida. marka runtii waa arrin oo aad u wanaagsan ayay ahayd in maanta waqti badanna la filayo inay dhacdo aysan dhicin. dowladihii hore oo jirayna laga rabay inay tallaabadan oo kale hore ay usii qaadaan aysan noqonin. maantana Ilaahay u waafajiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Laftagareen inuu maanta ku dhiirado uu maanta dhagax dhigaas uu waqti iyo juhdi geliyo ayna suurto gasho una weli jecel yahay in si degdega arrinkaas dhaqso loo dhiso. waana taariikhda xusi doonto insha Allah tacaala. waa tallaabo aad u wanaagsan dadweynaha reer Baraawana oo farxad gelinayso. waana ku mahadsan yahay gudoomiyaha baarlamaanka isagana runtii uu ka hadlay in muddo uusan Baraawe waqti hore ugu dambeysay, laakiin uu Baraawana la socday axwaalkeedii uusan dhinaca la socodka uusan kaga maqnayn, laakiin imaashaha uu kaga maqnaa oo ku cudur daartay. asna uu ku mahadsan yahay iyo tallaabadaas asna uu xoojiyey oo dhagax dhiga in dekeddii hawsheedii lagu degdego. marka runtii aad iyo aad arrin u farxad badan oo reer Koonfur Galbeed u wanaagsan, khaasatan reer Baraawo ayagana ay u wanaagsan tahay oo weliba ay tahay il dhaqaale oo oo maanta lagu intifaaci karo deegaankana uu ku hormari karo. marka runtii mudane madaxweyne Cabdicaziis Laftagareen dadaalka iyo tallaabada uu qaaday waa in lagu amaanaa laguna maamuusa. maxaa yeelay maamulkiisii Koonfur Galbeed waxay ka mid tahay dekedda Baraawe waa ilihii dhaqaalaha oo deegaanka uu ku hormari lahaa guud ahaan Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmada Baraawe. marka runtii arrimahaas dad ayaa aragti gaaban qaba maanta oo hadalladoodii qaarna u badnaa inkastoo ay u badan tahay dadka taageersan in Cabdicaziis iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada matala oo deegaanka Baraawe iyo madaxda degmadaba ay aad ugu faraxsan yihiin arrinkan tallaabadan hore loo qaaday, laakiin dadka arrintaa taageersan ayaa aad ugu badan qurbaha. marka walaalo kale ayaa jira ayaga aragtidoodii u arka arrinkaas inuusan sax ahayn. marka sababta ay ku diidayaan ilaa hadda aan weliba caddayn. waxaa la rabaa haddaan nahay qurbo joog waxaan rabnaa inaan ogaano waaqica jira
xaaladda dalka ay ku sugan tahay iyo waxa dan u ah maamulka guud ee koonfur galbeed gaar ahaan degmada Baraawe wax masaaliixdeedii ku jiro haddii la arko inaanan siyaasad kale la gelinin aragti kalena inaan lagu cabirin arrinkan waa arrin oo aad u wanaagsan oo deegaankana yacni u ah mid sharaf ah inaan wada fahamno laakiin yacni haddii xildhibaanadii deegaanka matala ay goobjoog ka yihiin oo madaxdii degmada ay goobjoog ka yihiin mas'uuliyiintii ugu sarreeyay oo federal noqota iyo maamul goboleed noqota inta mas'uul oo deegaanka oo ku matasha oo joogaan ay goobjoog u ahaayeen marka cidda rabto nalala tashanin waa ayo ilan yacni dadka wax sameynaya waa mas'uuliyiin waa shacabka oo reer koonfur galbeed oo gobollo kale ka yimid wax ma suubinayaan madaxdii baa wax samaynaysa yay la tashanay madaxdii soo madaxdii kala la tashanayso oo deegaankii ku matalaan ay soo jeedaan wayna la tashadeen wayna goobjoog ka ahaayeen marka cidda oo yacni wax diidan oo dadka qurbahana rabto inay yacni tashwiish geliso oo yacni inay qaarkood si telefoona hoos laga soo diro la yidhaahdo war arrinkaas yacni nalalama tashanin oo qaylo sameeya si qayladiina aan u isticmaalno oo annaga ixtiraam aan u helno arrinkaas yacni aragti gaaban oo ayaan darra ah bulshada waxgaradka aqoon-yahaniinta qurba joogta ah oo meel walba caalamka ay joogaan oo aqoon-yahano leh dheer garad leh culummo leh oo yacni oo arrimaha bulshada leh oo ganacsato leh in yacni khalkhal iyo aragti oo yacni gaaban oo shakhsi xambaarsan in la geliyo oo la yidhaahdo arrinkaas asaga ah waa inaad shir qabataan isugu imaada arrinkan ka qayliya oo ninka yacni mas'uulka ah haddii uu aragti qabo ama uu wax diidan yahay waa parliamentarian intuu soo istaago codkiisii asaga meel walba gaarsiin kara in la taageero iyo in lagu diidaba midii uu helo markaas laakiin inuu shacabkii maanta oo indhihii deegaanka ah inuu isticmaalo si asaga yacni loo yeero la yidhaahdo niyo kaale adi maxaa damacsanta arrinkaas waxa waaye arrin ayaan darra ah waay runtii madaxdii noo muuqatay inta deegaanka matasho way joogeen waa ilaa hal qofaa ka maqan sababtu u maqan yahay cudurdaar muu ku maqan yahay arrimo kale muu ku maqan yahay asagii haddii arrin uu qabo waxaa la rabaa yacni walaalihiisa kale oo xilka la hayaan inuu la fariisto uu la hadlo arrinka la ogolaadayna maxaa maslaxad deegaanka ay u tahay maxase caqabad ay deegaanka u tahay kadib inay isqanciyaan ayagaa hal doon wada saaran hal deegaanay matalaan federaalkeena ay kaga jiraan intoodiiba marka taas waa arrin hoos oo xalkeedii iyo dadka yacni xildhibaanada ay u saaranta laakiin inta yacni shakhsi aniga goobtaas ani ma joogin dadka inaan waco aan warxumo tashiil geliyo si aragti kale dadka loogu yeelo runtii arrimahaas waxay aad u wanaagsan yihiin in aad looga taxadaro yacni sheekooyinka noocaas shakhsi danihiisa ama arrimihiisa gaarka in yacni bulsho lagu kiciyo waa arrin aad looga fiican yahay waxaa la soo hadal qaaday dhibaatadii hore u dhacday oo dekedda ahayd airportka ahayd runtii airportka Baraawe maanta qarashka loogu talagalay laguma dhisin airport fiican oo qurux badan lama dhisin yacni nidaamkii la rabayna wax looma dhisin maalinkaana sidaana u taagnayn marka cidda qandaraaska dhiibtay xoolihii ka baxay hadday sidaas ayagaba raalli ka yihiin aysan dacwad qabin annaga wixiina soo gaaray uun baan qaadanaynaa markaas maanta airportkii asagoo sidaa u khariban ayaa ah mid maanta diyaarad ka degto diyaaradna ka duusho berri annagay noo taallaa bilowgaas naloo bilaabay inaan wax ka dhammaystirannoon hagaagsannoon quruxsanno cidna hortaagan male ee mas-uuliyaddeediina aan si xoog leh aan ula wareegno cid maanta nagaga hortaagan ma lah marka asagoo kharashkii la cunay kharashkii annagana lagama cunin ciddii baxsatay inay la xisaabtanto cidday u dhiibatay innagana inaan ka dacwoonno waxa deegaankeeni lagu matalay ma dhisna inaan dhahno ee dacwaddii ayagay u taalla ta dekedda maanta hadda ay tahayna qandaraasaa la bixiyey awalba qandaraaska cid unbay alfan lahayd mar walbaba marka haddii si qarsoodi loo siiyana wax ilaahay yacni u qoray unbay noqonaysaa xalafkii haddii tartan la geliyana ayagii unba alfan kara haddii ilaahay u qoray ay noqoto marka miday noqotoba qarashkii hadda qof walba waa ogyahay wixii qarash lagu bixinayo dekedda qaabta loo dhisayo naqshadeediina waa la arki karaa haddii sidii loogu talagalay dekedda loo dhisana waa yacni sidii la rabay waaye
haddii ay wax ka qaldaan oo kharashkii ka maqan yahaan annagu inaan dacweyno oo ciddii markaa kharashka baxsatay inaan u sheegno hawsha la qabtay inay qabyo tahay. walaakiin annaga waxa waaye dekedaan yeelanay, magacii dekedana waa noo diiwaan galay, active waaye. hadhow kaabayaasha dhimanoo laga tagay xitaa far mustaqbal innagaa ka dhammaysan karna, waxaynina waa wadan karnaa. marka yacni in laga tago wejiga ah yacni xayawaanka riibada oo kale. riibo waxaa la dhahaa yacni geed ma daaqdo mana laga daaqo. marka in muddo waa la aamusaa, markay hawshu ay timaado unbaa dadkeenni inta badan yacni hadal iyo qaylo la gala. qaarkood nagu dhex dhuumanaya ay rabaan inay mudnaan iyo ixtiraam ay helaan qaylada dhexdeedii, oo aysan daacad ka ahaynba in deegaankaas loo doodo, dhibtiisa iyo arrimihiisii laga hadlo. marka runtii arrimahaasoo idil waxaa la rabaa in laga sii taxadaro, laga sii fiijignaado, qof walbana yacni uu ogaado, dareen iyo caqli lisu sameeyo. maanta dadka lagu xisaabtamaayo berri indha u ah, mustaqbal ah, waa dadka qurbaha maanta jooga. runtii waa dad qiimo leh oo deegaankaa badbaadiya, in badanna wax u qabta, ilaa haddana ku tacalluqan inay wax qabtaan. marka in maanta deked baraaw dhagax la dhigo, dood la geliyo, macnaheedii maxay tahay? yaan waxbana loo dhisin miya? ilin kor iyo hoos waxa waa in wax la dhiso waa la rabaaye. haddii kontraadkii la bixiyey, haddii hawshii la qabto, wayaan waxna loo dhisin may taaganta? arrinkaa waa feker khalada. marka runtii yacni madaxweynaha ammaan buu leeyahay cabdicasiis. runtii waxa waaye in maamuus fiican loo sameeyo, yacni xilligan hadda la joogo inuu ku degdego dhagax dhigii oo dekeda degmada baraawe, oo hawsheediina waxaan ka rajaynaynaa in dardar la geliyo, sida ugu dhaqsiyax badanna inay hawshaas ay u howlgasho. dherigana waxaa la dhahaa yacni ninka kaga dhow ayaa yacni kaga intifaac badan. marka haddii ay noqoto dekediina degmada baraawe in laga dhiso, walow dekedaas yacni guud ahaan soomaaliba ay dan u tahay, gaar ahaan koonfur galbeed ay dan u tahay, laakiin khaasa haddana dadka manaafacaadka oo dherigaa si fiican ugu intifaaci doono waa dadka ahlu baraawe. marka in la fahmo, madaxdii hawshan keentayna inaan lagu aflagaadaynin, inaan lagu dhibaataynin. wanaagga iyo siday u rabaan iyo farxadda ay rabaan in sideedii yacni loo qaato. wa ama wixii berri dhici doono allahu aclam. waxaa laga yaabaa arrinkan hadda maanta dhagaxan la dhigay inay u tahayba yacni isha keliya oo la sugaayaba inay bulshadan horumar gaarsiiso, oo yacni deegaankaasna ay ballaariso, oo wax weynna ay u tarto. runtii taa qof walbana waa dareensany, waana laga wada dheregsan. marka yacni si buuxda oo xoog leh oo qiimo leh waxaan u taageeraynaa ama aan ku taageeraynaa dhagax dhigga la dhigay deegaanka degmada baraawe ahna caasimadda koonfur galbeed, in dekedaas yacni dhismaheedii uu dhagax dhiggii la dhigay. waana ku taageersannahay ciddii ka soo shaqaysay, ugu horreeya madaxweyne cabdicasiis iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Sheekh Aadan Madoobe, iyo madaxdeenni noogu sarreyso oo xildhibaano leh oo dhanka federaalka, oo xildhibaano leh dhanka koonfur galbeed, oo haddana ugu sarreeya madaxda deegaanka, mas-uuliyiintoodii kala duwan, oo horkacayo guddoomiyaha degmada Dr. Liibaan ahna duqa magaalada, iyo ciidamada saraakiisha oo yacni taabo geliyey ama suurto geliyey in amni iyo wanaag iyo farxad yacni ay wafdigaas ku yimaadaan, amnigiina ay ka adkaadaan, hawshiina ay suurto gasho. ayagana ammaan gaar bay leeyihin. marka runtii yacni reer baraawe waxaan leeyahay hal isku duubnaado, hal ula jeeda hala noqdo, ood qaadis iyo jiidis waa isla gurigeyn. hawshaan deegaankaasaa loo wadaa, qof walbana deegaankaas horumarkiisu ka fekeroya. waana naloo keenay wixii yacni horumarka bilow noo noqon lahaa, qaabta iyo nidaamka arrinkaa looga faa'iidi lahaa ha laga fekero, wada shaqayn fiican ha la sameeyo. madaxdii arrimaha tallaabada qaadayna ammaantoodii ha la siiyo, in lagu eedo ma ah. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.